kulanti waxaana wanaagsan daawadayaal halkani warbaahinta Walbanaadir online ku soo dhawaada warka warbaahinta Walbanaadir online qodobada aad ku daawan doontaan waxaa kamid noqonaya dawladda Kenya ku dhawaaqday tallaabo kale oo ka dhan ah dawladda federaalka Soomaaliya haddaba tallaabadaasi maxay tahay warkan ayaad ku daawan doontaan maxkamadda gobolka Banaadir oo xukun la yaab leh ku riday wariye Cali Aadan Muumin haddaba xukunkaasi sida ay u dhacay waan idin soo gudbinayaa al-shabaab oo qarax culus la beegsaday kolay ka tirsan ciidamada AMISOM qasaare ayaa jira haddaba qasaaruhu xagee la egyahay warkan ayaa idinkugu haynaa farmaajo oo safiir cusub u magacaabay dalka Sacuudi Arabiya kana dhoofay wadanka xagee ayuu ku jeestay farmaajo waan idin soo gudbinayaa Ethiopia oo ka jawaabtay gefkii ay dalal ugu sheegtay Somaliland iyo Puntland haddaba Ethiopia maxay ka tiri warkan ayaad ku daawan doontaan arrin naxdin leh oo maanta ka dhacday degmada Guraceel ee gobolka Galgaduud arrintaasi maxay tahay warkan ayaan idinkugu haynaa dibaddana waxaan idinkaga hayaa Maraykanka oo sheegay in Iran miinooyin ku aastay badda Imaaraat qodobadaasi ayaa daawan doontaan saaxiibayaal taariikhdu waxay ku beegan tahay 29 bisha shanaad May 2019 u diyaar garooba daawashada qodobadii aad maqasheen oo intii hore ka door xuran aynu ku bilownay dawladda Kenya ayaa waxay ku dhawaaqday tallaabo kale oo ka dhan ah dawladda federaalka Soomaaliya dawladda waddanka Kenya ayaa maanta sheegtay inaysan ogolaan doonin in alaabta xamuulka ah oo aysan cidna la soconin diyaaradaha ka imaanaya Soomaaliya ay geeyaan dalka Kenya dawladda Kenya ayaa wax ogaatay oo ay walaac ka qabtaa shixnadaha badan oo aysan cidna la soconin oo ka imaanaya Soomaaliya tani waxay tijaabinaysaa xeerarka caalamiga ah ee gaadiidka waxayna soo rogaysaa halis amni ayaa lagu yiri bayaankani ka soo baxay dawladda dalka Kenya sidaas darteed dawladda Kenya ma ogolaan doonto in alaab aysan cidna la soconin ay ka soo gasho dalka Soomaaliya diyaarad kasta oo arrintaasi samaysana waxay qaadi doontaa mas'uuliyadda arrintan ayaa u muuqata mid cadaadis xoogan lagu saarayo ganacsatada Soomaaliyeed oo markii hore awoodi jiray in ay iyaga oo dalka jooga iyo alaabtooda u diraan Kenya kuwaas oo markii ay halkaasi tagaan ay la wareegi jireen ganacsato kale oo xiriir shaqo kala dhaxeeyay go'aankani maanta ka soo baxay Kenya ayaa qayb ka ahayd tillaabooyin dhowr ah oo ay Kenya ku cadaadinayso dawladda federaalka Soomaaliya oo ay ugu dambeysay fiisihi xubnaha dawladda Soomaaliya ka tirsanaa looga joojiyay garoonka diyaaradaha Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi Kenya ayaa doonaysa inay Soomaaliya ku qasabto inay ka laabato dacwadda taala maxkamadda caalamiga ah ee la xiriirta badda Soomaaliya ee Kenya ay sheeganayso waxaana maalmihii la soo dhaafay dawladda dalka Kenya ay ku dhawaaqaysay arrimo la yaab leh oo liddi ku ah dawladda federaalka Soomaaliya wali ganacsatada dawladda federaalka Soomaaliya arrintani kama aysan hadal mana cadda waxay ka dhihi doonaan labadaba Ethiopia ka jawaabtay gefkii laba dal ugu sheegtay Somaliland iyo Puntland dawladda Ethiopia ayaa amar ka soo saartay arrin xiisad dhalisay oo ku saabsanayd wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia iyo dawladda ay dawlad madax bannaan u aqoonsan tahay maamulada Puntland iyo Somaliland tunkan ayaa imaanaya kadib markii bogga internetka wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia lagu arkay inay ku dartay liiska dalalka ay matalaad diblomaasiyadeed ku leeyihiin maamul goboleedyada Somaliland iyo Puntland taasi oo keentay inay qayladaan ka muujiyaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo madax ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya dawladda Ethiopia ayaa sheegtay inaysan marnaba diyaar u ahayn inay ku xadgudubto madax bannaanida Soomaaliya isla markaana ay maamulada Somaliland iyo Puntland u aqoonsan yihiin maamul hoos yimaada dawladda federaalka Soomaaliya afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia oo la hadlay idaacadda BBC-da ayaa yiri Ethiopia waxay Somaliland iyo Puntland u aqoonsan tahay inay yihiin maamulo hoos yimaada dawladda federaalka Soomaaliya mar wax laga weydiiyay sababta liiska wadamada loogu daray Somaliland iyo Puntland ayuu kaga jawaabay page-ka wasaaradda ay ku qoran yihiin waxyaabo badan balse ay arrintani dib u ogaadeen waxa xusid mudan in wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia boggeeda ay ku leeyihiin internetka ay dal ahaan u aqoonsteen maamulka Somaliland iyo Puntland arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli dhawaan ay muran badan dhalisay tallaabada dawladda Ethiopia ay qariidada ugu saartay dawladda Soomaaliya inkastoo arrintaas dawladda dalka Ethiopia ay raali gelin buuxda ka bixisay maxkamadda gobolka Banaadir ayaa xukun la yaab leh waxay ku riday wariye Cali Aadan Muumin maxkamadda gobolka Banaadir ayaa xukun la yaab leh waxay ku riday wariye ka tirsan goobjoog oo lagu magacaabo Cali Aadan Muumin oo maalintii shalay haday lagu xiray xabsi ku yaala magaalada Muqdisho wariyahan oo shalay la geeyay maxkamadda gobolka Banaadir ayaa waxaa dib loogu soo celiyay maantay waxaana ay ka gaartay go'aan xukunna waa lagu riday wariye maantay maxkamadda
maxkamadda la geeyey. Maxkamadda ayaa sheegtay in waryahani ay dacwad ka soo gudbiyeen borotokoolka madaxweyne Farmaajo, booliska Soomaaliya iyo wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya. Maxkamadan ayaa wariye Cali Aadan Muumin ku xukuntay inuu xabsiga ku sii jiro ilaa uu ka dhamaanayo imtixaanka dugsiga sare ee ka socda gobollo badan oo Soomaaliya ka tirsan. Imtixaanka dugsiga sare ayaa dhamaanaya maalinta Jimcaha oo taariikhdu ku beegan tahay 31 bisha, waxaana warar qaar ay sheegayaan in maxkamadda amartay in xorriyadiisa dib loo siiyo maalinta berita oo taariikhdu ku beegan tahay 30 bisha. xukunkan ayaa noqday mid la yaab leh, waxaana xoog hoose ay sheegayaan in maxkamadda gobolka Banaadir ay diiday markii hore inay dacwadani qaado maadaama aysan sheegin inaysan dacwad ahayn. Facebook ayaa waxa laga soo qoray arrin la yaab leh waxay ka dhacday degmo ka tirsan gobolka Galgaduud, waana degmada Guraceel ee gobolkaasi. waxaa maanta barkad ku wada geeriyooday 3 caruur ah oo wada dhashay. barkad ku taala degmada Guraceel ee gobolka Galgaduud ayaa waxaa ku wada geeriyooday 3 caruur ah oo wada dhashay, kuwaasoo da'doodu u dhaxaysay 10 ilaa 15 sano jir, waxayna ahaayeen 2 gabdhood iyo wiil. dadka degan degmada Guraceel ee gobolka Galgaduud ayaa waxay arrintaasi ku abuurtay walaac aad u xooggan, waxaana hadaleynta ugu weyn ee maantay degmadaasi caruurtaasi wada dhashay ee halka meel ku wada geeriyooday. gudahaan warka ka daawanaysiin warbaahinta All Banaadir Online saaxiibayaal wanaagta sabaskraab dhaadii aad ku cusubtahay warbaahinta All Banaadir.